maxamed caydiid oo ah wasiirka warfaafinta Puntland ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamada ammaanka ee Puntland ay qabsadeen 250 kiiloomitir oo isku wareeg ah oo ay ku jiraan konton saldhig laga soo bilaabo bishii December 31 waana duulaankii ugu weynaa ee ka dhanka ah kooxdan muddo sanad ah. afhayeen u hadlay ciidamada Puntland oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dagaaladii labada maalmood ee la soo dhaafay ay ku dileen ugu yaraan 85 ka tirsan maleeshiyaadka ISIS ama Daesh halka 17 askari ay sidoo kale ku dhinteen. Caydiid oo ah wasiirka warfaafinta ee Puntland waxa uu sheegay in aysan jirin wax wada shaqayn ah oo ku saabsan howlgallada ay dowladda federaalka Soomaaliya ka wadaan Muqdisho kuwaas oo dowladda Puntland ay gabi ahaanba joojisay inay aqoonsato sanadkii hore wuxuuna ku baaqay in la kordhiyo taageerada shisheeye. kani waa dagaal caalami ah oo ka dhan ah argagixisada waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka inay nagala soo gaaraan khubaro qalab miinooyinka iyo qalabyada ka hortaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska kuwaas oo xakameyn kara diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee argagixisada. waa dagaal adag u yiraahday wasiirka warfaafinta Matt Braden oo ah falanqeeyaha arrimaha Soomaaliya ah isla markaasina kamid ah aasaasaha hay'adda cilmi baarista ee Sahan ayaa sheegay in maamulka Trump oo qaar kamid ah xubnahooda ay si cad ugu jasjaseen xukuumadda Muqdisho inay tahay mid daciif ah laga yaabo inay fiirsadaan sida ay uga kor qaadi lahaayeen iskaashiga amniga tooska ah ay leeyihiin maamulada maxalliga ah sida Puntland si loo la dagaalamo ISIS iyo Al-Shabaab. waxaa hore loo aqoonsaday in dowladda federaalka Soomaaliya aysan hadda ahayn saaxiib lagu kalsoonaan karo oo la dagaalanka kooxaha hubeysan ee xagjirka ah ayuu yiri wasiirka warfaafinta Daud Aweys oo ka jawaabaya su'aalo qoraal ah ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay uga mahadcelinayso taageerada saaxiibada caalamka balse Mareykanka ayaa aad u dhaleeceeyay Soomaaliya garab istaag xumadeeda ku saabsan dowladda Puntland oo ilaa hadda wax qalab ah ama wax ciidan ah ama wax garab istaaga aysan u dirin. ciidamada difaaca Puntland ayaana wada hawlgallo ay kula dagaalamayaan kooxaha argagixisada ee Daesh tan iyo 31 December waxaana dagaalkan uu yeeshay waji kale iyadoo dowladdu ay guulo badan ka gaartay isla markaasina ay ku guuleysatay qabsashada saldhigyo badan hub iyo maxaabiis waxaana hadda ay ku raad joogaan saraakiil ka tirsan Daesh oo buuraha ku dhuumaaleysanaysa. inkastoo Puntland ay hadda ay gacanta ku hayso sargaalkii ugu weynaa kooxda Daesh Lahore kaasi oo isbuucii la soo dhaafay is soo dhiibay kadib markii uu ka soo baxsaday argagixisada Daesh.